لكن سومالي لا حقيقة كم وقتها ويكدوا أنت هايو كوبي الشيء هي كفض الله عض كوبي أرنت كل واقع وأحب دقن كسومالي لان وصدق يديرها الصنو أن كهوينين وأن كهرسنين قديد يعني سنيه bulshooyin markay wax raadiyaan oo muddo inta leeg ay raadinayaan waxay raadinayaan aanay helin waxa ka dhasha qoos iyo generationka soo kacaya inay ka falceliyaan oo yiraahdo xaggan lagu wada enough is enough soddon sano dheeraad baan sugaynaa ixtiraaf ma hayno dhalinyarada marka ku baraarugaysa laakiin Soomaaliya xaqiiqada ka muuqata way ka duwan tahay oo kubii dhashay ayaa ka fadala cadcad kubii arinta ku dhawaaqay dadka ugu badan maanta arinta Soomaaliland oo laleynaya ee difaacaya ee baraha bulshada ku jira ee ku qanacsan iyagoo laga yaabo waxbarasho bilaash in aanay ku qabin oo caafimaad bilaash aanay ku qabin oo biyo bilaash aanay ku qabin oo daryeel guud aanay ku qabin haddana ku qanacsani waa generation kee dhashay why wadadaalkan ka hadlayno waa arrin u baahan in laftiga su'aal la iska weydiiyo malaha haddii su'aasha ay weydiisan maxaa keenay marka qaar kood waxaan isiraahdaa malaha dardaarankii Abwaan Hadraawi ay malaha qabaan Hadraawi waxa kamid ah dardaarankiisii wuxuu garawshiyo jeeron ka helo gaanka dunidayda jeeron galaabaha arlada goodi iyo goodi jeeron gufaacada ku taga meela gariyaada gaaliya islaamkaba ilaa taydu wada gaadho bari iyo galbeedkaba ilaa la igu gacan qaado guray iyo islow iyo hurrow gaba igu waabeen marka tii ahayd gaaliya islaamkaba ilaa taydu wada gaadho tii wad muddo inay taagan yihiin horta halku waxa ugu adag halku aniga aragtidayda saddex arimood saddexduba xal way noqon karaan laakiin midna inuu dhacayo u malayn maayo midka koobaad waxa weeye Somaliland hadda momentum bay haysataa waxay waagi hore indhaha waa laga lalin jiray walba gaar ahaan dunida carabta iyo muslimiinta inta ku hareeraysan indhaha way ka lalin jireen maanta laakiin cid kasta waa u dhagan nugusha inay Somaliland marka ay kaarka cusub ay haysatay dhaga wadanaanta loo dhaga wadan yahay inay ka faa'iideystaan ku gorgortamaan oo ay ku sadbursadaan oo Soomaali sida lagu badbaadiyay iyaguna ay ku badbaadaan hal bay noqon lahayd laakiin Somaliland laga heli maayo arinta labaad hal noqon lahayd waxay ahayd nin baa laga hayaa colka wadaf ma lagu day hadii midnimadii lagu quustay Soomaaliya inay garawsato Somaliland farax ka qaado inay ictiraafto dal Soomaaliyeed sida Djibouti oo kala soo kordhay ha noqotee in lagu fiiriyo taasina xamar ka suurtagali mayso maxaa suuragal marka qodobka saddexaad oo isna suurtagal ahaan lahaa isna laakiin aan dhacahayn waa in cid kale aysan ka inaga tasho oo la isu keen qasbo labada qoladii la doono culayska ha lagula kufo taasna waxaad moodaa waxa lagaga quustay 30 sano la soo dhaafay Soomaaliya oo xoog iyo xoolaba la geliyay oo la arkay inay waxba ka soo naasacadayn baa lagaga quustay Soomaaliya wuxuu yiri dadow dambasbaan afuufay digaan u maleeyay dheeman dunduma meed baan ku daalay curyaan baan daadaheeyay indhoolaan shamac u daaray dadaan dhaguhuba ku oolin durbaan u garaacistooda dantaydii baan ku seegay adduunku maanta waxaad halkaas u taagan yahay marka Soomaaliya la fiiriyo cid kale marka inoo soo socotayo mid keen qasbaysaana xal baabay ahaan lahayd iyana ma jirto wuxuu noqonayaa marka ay isugu biyashubanaysa in inaga xawaali ninkeed loo kala tagay in la isu keenayo hadii la isu keendaayana aqli ina kala wadana Soomaalida kumeynaan ogeyn xuduudan ku kala adkaanana ma lihin marka de meesha inala gaadhuun inaynu arag